guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Ilkaha caafimaadaysan waxay naga caawinayaan in aan ruugno cuntada nafaqaysan, si cad aan u hadalno, iyo inaan muujino dhoolla caddayn quruxsan. Waxyaabo sahlan oo nafsadaada iyo carruurtaada aad u qaban karto ayaa jirta si ilkahaaga iyo dhoolla caddayntaada aad u dhowrto. Daryeelista ilkaha hore ee ubadkaaga aad bay muhiim u yihiin. Waxay u ogolaataa inay cunaan cunto caafimaadaysan sida miraha iyo khudaarta, oo waxay u xaqiijinaysaa in ilkahooda joogtada ah ay si sax ah ugu soo baxaan. Ubadkaaga sibyaanka ah ku bilow in ciridkiisa aad u dhaqdo ama buraashka ilkaha nuunowga xitaa ka hor inta aysan u soo bixin ilkaha nuunowga. Naasnuuji oo waqtiga jiibka ubadkaaga sii mujura caanaha halka aad ka siin lahayd dhalada, kaasoo dhalin kara ilig bolol. Goorta ubadkaaga ay u soo baxda iligta koowaad, ku bilow in maalintiiba 2 jeer ugu cadayso cadayga ilkaha ee khafiifka ah ee loogu talagalay ilmaha sabyaanka ama dhallaanka. Isticmaal daawada ilkaha oo aan fluoride ku jirin oo wax aad u yar sida xabad miro oo bariis ah oo kala saar cadayga ilkaha. Goorta ubadkaaga uu 3 sano jirsado, waa in lagu bilaabaa in la isticmaalo wax aad u yar oo ah daawada ilkaha oo fluoride ay ku jirto. Dooro daawada ilkaha oo ay korka kaga qoran tahay ADA accepted, ADA way ogolaatay. Tan macnaheedu waxay tahay waxaa ansixiyey ururka daaweynta ilkaha ee Ameerikaanka. Ubadkaaga bar inaysan daawada ilkaha liqin ama dhunjin, laakiin ay soo tufto goorta ilkaha ay ku cadaysato. Carruurta yaryar ka caawi in ilkahooda ay ku cadaystaan si markaas aad u hubiso ilig kasta cadayga la gaarsiiyey. Waa inay cadaystaan ugu yaraan 2 daqiiqadood maalintiiba 2 jeer. Hees qaad ama saacad qabti u qabo si loo hubiyo in waqti ku filan ay cadaystaan. Sidoo kale carruurta waa inay geli ay ilkaha ku nadiifiyaan si ay isaga saaraan cuntada ilkaha dhexdooda gasha. Waxaad soo iibsan kartaa walxo ilkaha lagu sifeeyo oo ilmaha isticmaali karaan, oo si sahlan carruurta ay u qabsan karaan oo ayna isticmaali karaan. Carruurta waa in takhtarka ilkaha loo geeyaa ka hor inta aan la gaarin sanad guuradooda koowaad. Markaas kadib carruurta waa in takhtarka ilkaha loo geeyaa sanadkiiba 2 jeer si ilkaha loogu soo nadiifiyo oo loo soo baaro. Takhtarka ilkaha waxaa dhici karta in carruurtooda ilkahooda soo saaro falooriyaadka, oo waxaa dhici karta inuu ku taliyo in ilkaha balaastig lagu qabto. Kuwan waxay ilkaha ubadkaaga ka ilaalisaa jeermiska iyo bakteeriyada sababa bololka ilkaha. Af caafimaadaysan sida carruurta yaryar uu ugu muhiimsan yahay ayaa sidoo kale dadka qaangaarka muhiim ugu yahay. Dadka qaangaarka ah waa in ilkahooda ay maalintiiba 2 jeer cadaysadaan ilaa iyo 2 daqiiqadood, kuna cadaystaan cadayga ilkaha oo khafiif ah iyo daawada ilkaha oo ay ku jirto daawada ilkaha ee fluoride-ka. Ilig kasta dusheeda kore cadayga mari. Goorta aad dhammayso, carabkaaga cadayga mari oo bakteeriyada ka saar. 3 biloodba mar bedel cadayga ilkaha ama ka hor haddii buraashka uu duugoobay. Sidoo kale dadka qaangaarka ah waxay u baahan yihiin in ilkaha ay maalin kasta ilkaha dhexdooda ku nadiifiyaan ceegeriga si looga saaro haraaga cuntada ku harta. Dabarka ilkaha waa wax jilicsan oo ku dhegdhega iligtaada ku kor samaysma, oo waxaa ku jira malaayiin bakteeriya oo keeni karta in iligu uu bololo. Dadka qaangaarka ah waa inay joojiyaan isticmaalka tubaakada ama cabidda khamriga.
Sigaarka, beebka, tubaakada lagu cabo iyo tubaakada aan qaaca lahayn dhammaantooda waxay sare u qaadaan halista ilka bololka, cudurrada ciridka iyo kansarka afka iyo dhuunta. Sidoo kale cabidda khamriga oo siyaado ahna waxay sare u qaadaa halista kansarka afka iyo dhuunta. Dadka qaangaarka ah waa inay dhakhtarka ilkaha ay u tagaan ugu yaraan sanadkiiba 1 jeer si ilkahooda loogu soo nadiifiyo oo loo soo baaro. Dhakhtarka ilkaha wuxuu sixi karaa dhibaatooyinka oo wuxuu ka hortagi karaa inay kuu keenaan waxyeelooyin dheeraad ah inay ku dhacaan ilkahaaga iyo afkaaga. Sidoo kale duqowda waxay iyagana u baahan yihiin in ilkahooda ay daryeelaan iyaga oo ilkaha cadaynaya oo si joogta ilkaha dhexdooda ay gari isaga nadiifiyo iyo in sanad kasta 1 jeer dhakhtarka ilkaha u taga xitaa haddii ay xiran yihiin ilkaha artifishaalka. Daryeel bixiyayaasha waa inay hubiyaan in dadka duqowda ah ay ilkahooda iyo ciridkooda ay daryeelaan oo ay ka caawiyaan haddii iyagu naf ahaantooda qabsan karin. Af caafimaadaysan wuxuu ku xiran yahay caadooyin caafimaadaysan. Qofka da'dii uu doono ha jiree, ilkahaaga maalin kasta 2 jeer cadayso ilaa iyo 2 daqiiqadood. Ilkaha dhexdooda maalin kasta ay gari ku nadiifi oo ugu yaraan sanadkiiba 1 jeer u tag dhakhtarka ilkaha. Cadaysiga ilkaha oo wanaagsan waxay dhisaysaa dhoolla caddayn caafimaadaysan, qoysas faya qaba iyo adiga oo faya qaba.